عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاش يمنا idinle kusoo dhawaada channelka daawanaysin waa Yumna Beauty. maanta waxaa rabaa inaan inkaaga faa'iideeyo saddex siyaabood aad u qasan kartid huruudka, saddex siyaabood oo aad u qasan kartaa oo isticmaali kartid huruudka. waayo huruudka waa shay aad iyo aad u fiican oo aan Soomaali ahaan u isticmaalno. hadda huruudka ayaan soo qaadanay, waxaa ku soo darsaday wax yar oo coconut oil ama saliid qumbo. saliid qumbaha ayaad ku darsanaysaa, waana qasanaysaa, saas ayaad ku marsanaysaa. wajiga waxaad ku haynaysaa ilaa 20 daqiiqo. 20 daqiiqo badan wajiga wax laguma hayni karo. taas waa tii koowaad. labaad waxaa sameyn kartaa huruudka ayaad soo qaadanaysaa, wax yar huruud waxaan ku soo qasan doonaa liin. wax yar oo liin ayaad soo qaadanaysaa, liinta ayaad ku qasanaysaa. liinta ayadana aad u fiican tahay. liinta hadaad allergy ku tahay waxaa ku bedelan kartaa caano ayaad ku qasan kartaa xitaa maasha Allah, ama malab ayaad ku qasan kartaa. intaas ba aad ay u fiican yihiin maasha Allah. kii liintan sasayo nooga soo baxay. isku siyaabo baad isticmaalaysaa ilaa 20 daqiiqo baad wajiga ku haysanaysaa maasha Allah. saddexaad hadana waa sameysanaynaa. saddexaad kadana waxaan ka sameysanaynaa aloe vera gel ayaan ka sameysanaynaa maasha Allah. aloe vera wax yar ayaan soo qaadanay, intaas ayaan ku qasanaynaa maasha Allah. aloe vera gana asaga aad iyo aad ayuu u fiican yahay. aloe vera gaan isticmaalay waa kasaa ayu noocaad haystid ayaad ka isticmaali kartaa, ayaad ku darsanaysaa maasha Allah. saas ayuu nooga soo baxay asxaabta. ka faa'iideyso waan fadlan hadaad ka heshay subscribe, like iyo share ka.